plasma inclusion iyo qaybta saddexaad waxa organelles oo xubnaha gudaha ku jira. hadda afartii baynu waxa ka hadli doonaa qodob plasma membrane waxa ku soo sheegay dahaarka unug. plasma membrane dahaarka unugu is a thin outer membrane waa xubka ugu sarreeya ee unugga which maintain the integrity of the cell kaasoo keena mar walba ama suga qaab dhismeedka unugga. It keeps the cell-ku wuxuu u ilaaliyaa and is content separate of and distinct from the surrounding. wuxuu kala ilaaliyaa cellka xubnaha gudaha ugu jira iyo waxyaabaha dibadda cellka yaala kala ilaaliyaa. It is a double-layered membrane about 4.5 mm and made up of phospholipid, cholesterol, glycolipid, and carbohydrate or oligosaccharide. It is a double-layered membrane wuxuu laba xub isu saaran baa leeyahay about kuwaas oo dhererkoodu yahay 4.5 mm and made up waxay ka samaysan yihiin baa leeyahay marka xubka plasma membrane-ka wuxuu ka samaysan yahay dufanaha phospholipid-ka buu ka samaysan yahay, cholesterol buu ka samaysan yahay, glycolipid dufan loo ka samaysan yahay, carbohydrate ma ka qaybinaa carbohydrate marka waa oligosaccharide waxa la sonkoraha 3 ilaa 9 ka oo sonkoraha waaweyn. functionka uu qabto marka shaqada uu jirka loo qabto waa maxay? plasma membrane saddex shaqo uu qabto waxa weeye separate the cytoplasm inside a cell from extracellular fluid. wuxuu kala saaraa ama kala ilaaliyaa dheecaanada gudaha ku jira iyo kuwa dibadda ka imaanaya cellka. 2 separate cell from another cell. laba cell buu kala ilaaliyaa isku dhicin. 3 provide abundant surface on which the chemical reaction can be occur. wuxuu cellka ka celiyaa xubnaha gudaha ugu jira haddii wax chemical la soo falgalaan. buu difaacayo protection. regulate the passage of material into and out of the cell. sidoo kale waxa uu suurtageliyaa inuu cellka wax geliyo oo jirku u baahan yahay. wuxuu jirku u baahan yahay dibadda u soo saaro. afarta shaqo oo shaqooyinka ugu asaaska ama ugu muhiimsan oo qabanaya cytoplasm plasma membrane. qaybtii labaad buu tagaynaa cytoplasm. Cytoplasm is a matrix or ground substance in which the various cellular components are found. Cytoplasm-ka waxa uu soo sheegnay ubuucda unugu is a matrix waa wax isku qasan or ground substance ama walax which the various cellular components are found. meeshaas oo laga helayo dhammaan organelles ama xubnaha unugga oo dhan. Water constitutes 75 up to 90%. waxa leh 75 ilaa 90% of the cytoplasm ee ubuucda unugga ahi it also waa 9% waa biyo weey. cytoplasm tabaaliyo 75 ilaa 90% waa biyo. It also contains sidoo kale waxa laga helaa solid components walxa adkayaala, protein walxa proteina, carbohydrates walxa lipid walxa dufana, and inorganic substances iyo walxa kale ama nooleyaal laga helaa. The inorganic component exist as a soluble waxay ugu jiraan walxahan nooleyaasha ahi si waxa weeye meelaan ay ugu jiraan because maxaa yeelay they are soluble in water waa walxo kumul biyaha. ubuucda unugga ama cytoplasm-ku baa leeyahay 75 ilaa 90% waa biyo laakiin waxa kale laga helaa walxo kale oo solid adka ay kamid yihiin proteinku ka mid yahay, carbohydrate ay kamid tahay, lipid ay kamid yihiin iyo walxo kale inorganic. walxo kale inorganic ay waxay ugu jiraan qaab meelaan ah sababtoo ah maxaa yeelay waa water soluble waa walxo ku milma biyaha ku milma. Organelles waa qaybta saddexaad ee aan u galeynaa. Organelles are a specialized portion of the cell with characteristic shape that assume a specific role in growth, maintain, repair, and control. Organelles are a special portion waa qayb khaas of the cell unuggu leeyahay with a characteristic shape kuwaas oo leh muuqaal kala duwan that assume a specific role kuwaas oo mid walba uu leeyahay shaqo cayiman in growth qaybtooda koritaanka cellka ka qayb qaataan, maintenance qaybtooda ka qayb qaataan, joogteynta unugga, repair qaybtooda ka qayb qaataan unugga hadii dhaawac gaaro in dib u soo nooleeyaan soo kabaan, and control qaybtooda waxay qabilaysan in unugga controlaan oo shaqada unugga dhexaysa xukumaan. Organelleska marka la sii dhexgeliya unugga dhex yaale organelleska waxa kamid ah nucleus baa kamid ah. nucleusku waxa kamid tahay organelleska ama xubnaha unugga dhex yaala. nucleus marka waa maxay? nucleus waxa loo yaqaanaa buu baa la yiraahdaa. nucleusku waa oval in shape qaabkeedu wuxuu sameeyay sida wareeg oo gale and is the largest structure in the cell waana xubinta ugu weyn xubnaha unugga dhex yaala. organelleska unugga dhex yaala xubinta ugu weyn weey contains the hereditary factor in the cell qaybatan ama meesha tan nucleus la yiraahdo waa meesha ay ku jiraan xubnaha hidde-sidayaasha ee loo yaqaan DNA-da meesha ku jirta weey.
hence it controls cell activity structure. sidoo kale xubinta tan nucleus la yiraahdo shaqadeedu waxa weeye control cell activity inay waxa weeye controlsho dhammaan activity-ga ama shaqooyinka dhex soconaya unugga. Most cells contain a single nucleus, but some like a mature red blood cells do not contain. Most of cells dhammaan cellasha oo dhan baa la yiri contains waxay leeyihiin single nucleus hal buu bay leeyihiin, but laakiin some like mature red blood cells unugyada RBC red blood cells kale oo qaan gaaray do not contain nucleus, iyagu nucleus ma yeeshaan. However, si kasta ha ahaatee muscle cells unugyada waxa weeye unugyada muruqyadu contains waxay leeyihiin several nucleus, iyagu waxay leeyihiin nucleus ama buuyo badan oo hal buu ma leh. xubnaha dhex yaala unugga waxa kala kamid ah xubinta loo yaqaan ribosome. xubinta ribosome-ka la yiraahdo waa tiny granules composed of the ribosomal RNA. They are a site of protein synthesis. meesha ribosome-ka la yiraahdo waa qaybta unugga xubnaha gudaha ugu jira waa organelle bay ka mid tahay. shaqada ugu weyn ee u qabata ribosome waxa weeye waa site of protein synthesis. meesha unugga proteinka loogu sameeyo waxa loo yaqaan ribosome. xubnaha kale unugga dhex yaala waxa kamid ah endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a double membrane channel. oo xubab waxa weeye channels oo laba ah. It continuous with the nuclear membrane. waxay ku xiriirsan yihiin maxay nuclear membrane buuda ku xiriirsan yihiin. It involves intracellular exchange of a material within a cytoplasm. shaqadooduna waxa weeye inay wax kasta oo waxa weeye la saarayo unugga laga saarayo in dibadda u saaraan wixii la soo gelinay dibadda u soo geliyaan gudaha u soo geliyaan. xubnaha kale jirka bini'aadamka waxa weeye oo cellka gudihiisa laga helo waxa kamid ah Golgi apparatus baa kamid ah ama Golgi complex. Golgi complex baa near to the nucleus buuday badana u dhowdahay. It consists of wax ka samaysan tahay 4 up to 8 membrane si 4 ilaa 8 xubub ka samaysan tahay oo sacs ah oo xubub ka samaysan tahay. It processes sort back and deliver protein to the various parts of the cell. qaybatan waa qaybta haysa ama xukunta inay waxyaabihii unugga u baahnaa inay u kala gudbiso. qayb kasta oo unugga kamid ah wuxuu gelinaysaa qayb wuxuu u baahnaa. organelleska xubnaha unugga dhex yaala kamid ah mitochondria. Mitochondria baa la small waa wax yar baa xubin yar spherical oo qaabka wareeg buu samaysan tahay rope shape qaabkeedu waa wareeg or filamentous structure engineered energy. qaybatan wareegtida wareega uu samaysan oo xubinta yar ah unugga laga dhaxelaya shaqada u weyn ee qabata waxa weeye generate energy inay tamarta unugga soo saarto ama unugga tamarta waa ku kaydsadaa marka loo baahdo dibadda u saarta. xubnaha ama unugyada jirka unugga dhex yaala waxa kamid ah lysosome baa kamid ah. Lysosome appears as membranous enclosed sphere. qaabkeedu wuxuu muuqdaa qaab wareeg oo kale. They are formed from Golgi complex and have a single membrane. They contain a powerful digestion. meesha ta waa u eg ama isku mid yihiin Golgi complex isku mid yihiin laakiin waxay kaga duwan tahay shaqadeeda waxay tahay powerful digestion waa qaybta unugga u qaabilsan digestionka ama cunto burburinta. Okay, insha Allah casharkeena kaas inoo joogi doona. casharkeena waxa ka hadlay selka iyo selka qaybaha loo kala qaybiyo 4 qaybood iyo qayb walba waxa weeye tusaalaheeda aad ba mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.